السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بداوديال هالكني هو تلفزيون كديجان كصوماليدا SRTV داوديال وحل سوق عليه هذه الداون شرتين برامج كنا وضعي جيسكا على برامج كوضعي جيسكا وحاسود تشريد كده هي أنا وحمد محمود إيه صاحبك محمد عمر علابة تضبط كان قد بدأ إنه قاعد دقيق دونه برامج كنا وضعي جيسكا أيها وحقيب كنا قناة شرمة حياتك سند لها مدوغا أفريقيا سوداني لحد xilliga uu ku soo aaday iyo dabcan sidoo kale ajandayaasha lagaga hadlay ayaynu ku falanqeyn doonaa sidoo kale barnaamijkeena wadciga iyo geeska toddobaadkan ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa isla markaana qayb ka noqon doona saameynta ay marba marka ka dambaysa ay ku sii yeelanayso dunida colaadda ka dhex aloosan dalalka Russia iyo Ukraine intaynu qodobadaasi u gudagelin marka hore aynu jaleecno bal deegaanka iyo wararkii u dambeeyay maasan xamdiyow dabcan barnaamijkan oo inta badan dhacdooyin badan ku soo qaadano waxyaabo laga falceliyay bal deegaanka inta badan kaga hadalno intaanaan gelin saad sheegtay deegaanka qodobadii ugu dambeeyay sarag soo deegaan mudooyinka ugu dambeeyay waxa jira dadaalo laga sameeyay dhanka abaaraha iyo amniga labada qodob baan taabanana si guud marka eegto amnigo deegaanka wad moodayn marka dambaysa loo qaatay qodobada ugu waaweyn ama issue-ga waxyaabaha xukuumadda xooga saarayso kasoo magaalooyinka amnigeeda la sugayo iyo si guud dadaalo laga wax laga qabay dhanka nabadgelyada inta marka laga yimaado deegaanada dhaca Soomaaliya waxa uu jira hawlgallo iyo dadaalo laga sameeyo iyadoo la kaashanayo xiriirka la leeyahay gobollada dowlad goboleedyada Soomaaliya marka si guud gobollada hadda daawayo qaybo kamid ah Shabeelle Liibaan waxa jira saameyn abaartu ay u keentay abaariis isbedelka cimilada ka dhashay soo noqday dadaalo laga sameeyaa jira intaan qodobka amniga nanu iman dadaaladaas waxa qayb ka marka dhibaatooyinka ka iman kara xilliga maadaama abaartu ay daba dheeraatay soo dhowrkii guud dambeeyay abaartan ay jirtay iyadoo noqsoonahay gobollada kale inay dhaamaan laftigoodu hadii xilli roobaadada soo socda roob la waayay mooyaan haddana saddexda gobol ay xukuumaddu qaadatay ajenda ay qaadatay in bal dadaal laga sameeyo oo sektorada kala duwan ee bahwadaagta ay joogaan waxa hadda bilaabmay xamdiyo gurmadka dadka nafaqo darada iyo ay saameysay dhanka cunnada raashinka hadda afdheer bay hawlgalladaas ka socdaan iyo gobollada kaleba marka saddexda gobol saameynta abaaruhu ay keeneen ba sidii awalba caadada xukuumaddu ahayd ka jawaabid gurmad baa socoto raashinadii kala duwanaa iyo iskugu jiray cunooyinka in la gaarsiiyo iyo adeegyadii kale ee biyaha oo sektorka xafiiska biyaha oo kaashanaya iyaguna qayb ka baldoorka ay ku leeyihiin gurmadka iyo ayaguna dadaal ka wada sidii biyo la'aanta ka jirta aagaas saddexda gobol ee soo sheegnay walow hadda xogaha u dambeeyaan hayna hadda dadaalo kala duwan laga wado hadda gobollada afdheer oo kale in ceelbiyoodyo degdeg ah laga sameeyo jiinka meelaha webiyada si bal bulshadan looga samata bixiyo qodobadaas marka ay qayb ka oo doorka xukuumaddu guddi baa loo saaray sekretariya kala duwan xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka oo sogde si guud mas'uuliyad kaliya u leeyahay hadana lakiin cunnadii raashinkii dadaal ugu jira xafiiskii biyo kala ku jira xafiiska caafimaadka oo cabsida laga qabo abaaran haday daba dheeraadaan ama saameyn haday keenaan cudurrada ka dilaacaan tiimkaas iyadu hawlgal bay ku jiraan oo ayaan hawsha way ku jiraan saan xogaha ka hayno warbaahinada gobollada jooga inta marka laga yimaado waxa jira soo hoggaanka nabadgelyada deegaanka oo isaguna qayb ka gudiyadan sidoo kale arrimo amnina u tagay aagaasi oo hadda dowlad goboleedka amaba gobolka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya degmada Yeet ee qaybta Soomaaliya kulamo la yeeshay laga hadlay arrimaha nabadgelyada maadaama ogsoonahay in mandaqada ay arrimo badan xamdiyo ay ka jiraan markastana xukuumaddu ay xoog saarayso dhankii amnigii iyo sugidda xuduudaha kulamadaasina way socdeen aagaas ka dhacay hoggaanku hogaaminayo oo lagu xaqiijinayo sidii bal bulshada labada dhinac iyo ciidamada labada dhinac ay iskaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo foojignaanta dheer laga qabo sidii amniga loo sugi lahaa marka qodobadaas aan ka soo qaadan karaa deegaanka aad baad u mahadsan tahay haddii aynu deegaanka intaasi kaga nimaadno dhowaan waxaa socdaal dalka Shiinaha ku gaadhay wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Axmed Shide bal wafdigaas iyo booqashadaasi dalkaasi Shiinaha lagu gaadhay xarunta caasimadda dalkaasi Shiinaha magaalada Beijing maxaa uu daaran yahay nuxurkiisu haddaan soo koobno qodobkana team isku dhafa Axmed Shide inkastoo soo hogaaminayo raacay
sector kan maalgelinta dalka team ka socda iyo kooxo kale oo xiriir la leh dhankan maalgelinta pitching bay joogaan arrimaha u tageen xiriirka labada dal xamdi oo China iyo Ethiopia oo xiriir soo jireen la haddana socdaalkan wuxuu uga duwan yahay amaba kulamada waxay uga duwan kulamadii hore ku lagu sameeyay gudiyo aasaasan oo Ethiopia China oo xoojiya xiriirka labada dal ama hadafka labada dal su'aalahan waxa xoog la saaraya waxyaabaha hadda China ama Ethiopia rabto in wax soo saar badan oo dalka product badan oo Ethiopia soo saarto in si freely loo suuqeeyo arrimaha kale ee maalgelinta in la xoojiyo dhanka dhaqaalaha marka iyadoo la ogsoonahay in hadda marka laga yimaado xiriirka Ethiopia dalalka kale la leedahay dana dalka China waa dalalka ugu saameynta badan qaaradda Afrika gaar ahaan Ethiopia xiriirka la leh si marka arrimahaas kor loogu qaado China marka waxaad moodaa in ay soo dhawaanayso Ethiopia ay doorkeeda xaqiijinayso maadaama mandaqadii ama dunidii ay xaalad dhaqaale iyo arrimo badan ay kolbay soo tarayaan marka wafdigan xitaa kulamo kale oo munaasabado kale oo arrimahan xiriirka labada dal ka dhacaya ka qayb gali doonaan oo qodobo kala duwan looga hadli doono oo khuseeyo xiriirka labada dal iyo dhanka dhaqaalaha marka teamkan waxay qayb ka yihiin kuwa markasta ka duulaya maadaama ay qaybtii maaliyadda yihiin iyo qaybtii maalgelinta bal isbedelka ay ku keeni karaan dhanka maalgashiga bal dalka Ethiopia iyo potentialka dalku haysto si looga badbaado dhaqaale la'aanta ee soo wajihi karta guud ahaan qaaradda iyo dabcan in cid kasta oo ay u furan tahay maalgashi inay dalkan Ethiopia ku sameeyaan sidii ay dabcan faham buuxa uga sii lahaayeen fursadaha maalgashi ee dalkan Ethiopia ka salaxan alxamdu inta markaan ka nimaadno haddaan qodobkan ku sii socno barnaamijkeenin bal dhanka pan africanism oo muddooyinkan u dambeeyay aad u falaqeynay iyo caasimadda madiinada Afrika Addis Ababa isugu yimid shirkiisa lixaad bal qodobadii looga hadlay ceelaabo aad baad u mahadsan tahay sida aynu toddobaadkii horeba barnaamijkeena wadciga geeska aynu kaga soo shanqarinay waxaa xusid mudan in shir madaxeedka sanadlaha ah ee 36aad ee midowga Afrika uu ka qabsoomayo caasimadda dalkan Addis Ababa uu ka qabsoomay toddobaadkeenu ka soo gudubnay laguna soo gabagabeeyay waxyaabaha hadaba ugu muhiimsan intaynaan dib u milics ku sameeynin barafniganismka iyo taariikhdiisii oo madashaasi lagaga shanqariyo dibna loogu jalaacay bal aynu ku horumarno qodobada iyo waxyaabaha ugu muhiimsana ama ajandayaasha ugu muhiimsana ugu waaweynaa ee hor yaalay madaxda midowga Afrika shirkan 36aad oo hadaba isagu ahaa mid ku soo beegmaya xilli dunidu ay saameyn ay ku yeelanayaan mid taban iyo mid toganba isbedelada ka dhacaya dunida iyo quwadaha dunida hadii ay noqon lahayd sixir bararka ay horseedeen colaadaha ama xurgufta ka dhex aloosan quwadaha dunida ee dalalka Russia iyo Ukraine sidoo kale oo sixir bararku halkaas ka dhashay saameyntii caabuqii safmarkii COVID-19 oo sanadadii u dambeysay ay dunidu la soo daalaadhacaysay iyo arrimo kale oo dhinaca ammaanka la xiriiraba waxa uu ku soo beegmayay xilli ay aad iyo aad xasaasi u tahay in ay madaxda Afrika ay ka fadhiistaan isla mar ahaantaana ay jeexjeexaan taba iyo talaabooyin ama baxeelado hor leh oo lagaga samata bixinaya qaaradda caqabadahaasi dunidu ay dhex mushaaxayso qodobada ugu waaweynaa ee hor yaalla hadaba hadii aynu dib u eegno waxa kamid ahaa in dib u habeyn lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoo la isla qaatay amaba inta badan lagu celceliyo sidii ay Afrika xubin joogta ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay arintaasi qayb ay ka ahayd sidoo kale waxa qayb ka ahaa sidii loo kobcin lahaa amaba loo ballaarin lahaa in qaaradani midow ee Afrika ay ka dhaqan gasho aaga ganacsiga xorta ah taasi oo la aaminsan yahay in uu dhaqaalaha qaaradani Afrika amaba qaaradda midow uu waxyaalo badan ku soo kordhin doono sidoo kale waxyaabaha lagaga hadlayay shirka ayaa waxa ama qodobada ugu waaweynaa iskaashiga dhinaca ammaanka ee qaaradda oo loo baahan yahay in la sii joogteeyo si wada jirana loola dagaalamo argagixisada sidoo kale shirkan ayaa waxa lagaga hadlay amaba ay madaxdii shirka ka soo qayb gashay ay khudbado kala duwan ka soo jeediyeen waa madaxda midowga Afrika iyo sidoo kale ergada kale ee ka soo qayb gashayba khudbado kala duwan ay ka soo jeediyeen imaatinkan amaba fadhigan ay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan oo taabanaya dhinacyo kala duwan hadaba hadii aynu khudbadahaasi aynu dul istaagno
midna aynu usoo qaadano haddii aynu ku horumarno ra-iisul wasaaraha dalkan Ethiopia oo ah isagu dalka ay tahay xarunta midowga Afrika caasimadda dalkan Ethiopia Addis Ababa dalkan Ethiopia marka taariikhda dib loo jaleecana uu boos weyn ku leeyahay amaba uu baal dahab kaga jiro sidii loo kobcin lahaa loona hirgelin lahaa Afrika madax bannaan isla mar ahaantaana loo sii anbaqaadi lahaa nidaamkii Pan-Africanism-ka ee ay jideeyeen madaxdii hore ee Afrika ra-iisul wasaare Abiy Ahmed khudbadiisii waxa ka mid ahayd haddaba haddii aynu soo qaadano dadaaladii dheeraa ee ay u soo galeen madaxdii hore ee Afrika oo la oran jiray urur ay ku mideysnaayeen OAU amaba ururka midnimada Afrika kaasi oo haatan laga joogo muddo 60 sano ah sidoo kale sidii loo sii anbaqaadi lahaa amaba loo sii dardargelin lahaa nidaamka Pan-Africanism-ka iyadoo la xaqiijinayo Afrika ka madax bannaan faragelin shisheeye sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed khudbadiisa ku xusay amaba sheegay in nidaamka Pan-Africanism-ka waqti xaadirkan laga gaadhay tallaabooyin iyo sidoo kale guulo waaweyn laga soo hooyay nidaamka Pan-Africanism-ka loona baahan yahay in la sii wado ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu soo qaatay amaba khudbadiisii sidoo kale qayb ka ahayd sidii midowga Afrika oo sida xilkasnimada leh uga soo baxay dhexdhexaadintii amaba xurguftii ka jirtay sidii loo soo afjari lahaa dalkan Ethiopia sanadadii la soo dhaafay waa dawladda dhexe iyo TPLF oo aad ugu amaanay Afrika iyadoo uu arintaasina ku tilmaamay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed mid xaqiijinaysa amaba ku qotanta in ay Afrika iyadu furdaamin karto caqabadaha iyo qulqulatooyinka dhexdeeda taasina loo baahan yahay in la sii anbaqaado kana mid tahay waxyaabaha ka dhashay amaba guulaha saldhigga u ah nidaamka Pan-Africanism-ka iyo in Afrika iyadu aayaheeda ay ka tashato iskuna xidhnaato ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa kale oo soo qaaday amaba shirweynahaasi 36aad khudbadiisii ka mid ahayd dhinaca mandaqada iyo xiriirka iskaashi waxaynu ognahay in dalkan Ethiopia kaliya tan uusan ku koobnayn inuu ka shaqeeyo arrimaha gudaha dalkiisa iyo sidii loo xalin lahaa amaba loo furdaamin lahaa qulqulatooyinka dalka gudihiisa balse dalkan Ethiopia waxa uu mar walba u taagan yahay in mandaqada iskaashi wanaagsan lala yeesho sidoo kale caqabadaha iyo qulqulatooyinka wajahayana qayb ay uga noqon lahayd amaba ay uga odayeyn lahayd ra-iisul wasaaruhu waxa uu tusaale u soo qaatay dhibaatooyinkii ka jiray dalalka Suudaanta koonfureed amaba South Sudan Soomaaliya iyo sidoo kale dalal kale oo ay arrimaha dhexdhexaadinta ka soo qayb qaateen taasina ay ka mid tahay wili tallaabooyinka lagu xaqiijinayo nidaamka Pan-Africanism-ka dhinaca kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu khudbadiisii ku soo qaaday in la joogo waqtiga ay qaaraddu sameyn lahayd tallaabo lagaga kaaftoomayo ku tiirsanaanta dhinaca cunnada iyadoo qaaraddu ay hodan ku tahay buu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed wax soo saarka khayraad kala duwan oo dihinna ay leedahay tallaabooyinkii ugu horeeyay ay dalkan Ethiopia ay qaadayso oo markii ugu horeysay wax soo saar aan hore looga baranin dalka dibadiisa loo dhoofinayo taasina ay ifafaalo wanaagsan muujinayso haddii ra-iisul wasaaruhu khudbadiisu dhinacyo badan ay taabanaysay aan inaha ku soo koobno haddii aan haatan aan jaleecno khudbadii amaba hadaladii ugu muhiimsanaa ee goobtaasi ka jeediyay gudoomiyaha komishinka midowga Afrika Musa Faki Mohamed waxa uu sheegay in uu shirka 36aad ee qaaraddu ku soo beegmayo xilli saameynta dunida ka taagan ay tahay mid laga walaaco amaba walaac abuuraysa saameyntaasi oo ah salka ku haysa nidaamka geopolitical duniduna ay wajahayso waqti xaadirkan mawjada saameyntaasi ee ka dhalatay oo sixir bararka iyo waxyaabaha kale ee colaada oo ku soo qaaday khudbadiisaasi uu ku sheegay in qaaradda loo baahan yahay in ay ka tashato sidii aysan saameyntaasi ay saameyn ugu yeelan lahayn mid intan ka sii durugsan ama saameyn intaasi ka badan Musa Faki Mohamed waxa uu xusay amaba hoos ka xariiqay in Pan-Africanism-ka oo sii xogeysanayo waqti xaadirkan rajo wanaagsan muujinayo inta badan waxaynu aragnaa hadaba markaynu haddii aynu ku dul hakano arrimahaasi Pan-Africanism-ka in ifafaalooyin wanaagsan laga muujinayo sida ay dadka arrimaha siyaasadda ee Afrika ay ka falanqooda amaba ka faalooda ay ku tilmaameen in xaaladda Pan-Africanism-ku ay u muuqato mid wanaagsan kadib
waqtigii laga soo bilaabo waqtigii laga soo gudbay in amaba waqtigii gumaysidiidka iyo inay qaaraddu xor noqoto kadib isla mar ahaantaana aayaheeda si xor ah oo madax bannaan ay uga tashato walow ay jiraan goldololooyin iyo sidoo kale faragelino mararka qaar ay qaaraddu ka wajahdo dunida inteeda kale arintaasina uu Musa Faki ku tilmaamay mid loo baahan yahay in lagu xaqiijin karo kaliya lagana gudbi karo pan africanism-ka iyo in Afrika ama qaaraddu ay noqoto mid gacmaha haysata oo si wada jira dhinaca arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo arrimaha siyaasadaba ay si wada jira ay u wajahdo arinta uu wax ka bedelka ku tilmaamay Musa Faki Maxamed gudoomiyaha komishanka midowga Afrika waxa uu ku tilmaamay ama uu dul istaagay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo la dagaalanka argagixisada ama qaabka looga hawlgalayo in loola dagaalamo argagixisada ay tahay mid u baahan in wax laga bedelo tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano dalka Soomaaliya muddo xarigaadisay argagixiso taasi maaha haddii aynu tusaale ahaan soo qaadano qaabka uu Musa Faki Maxamed gudoomiyaha komishanka Afrika midowga Afrika uga hadlay in ay tahay in si wada jir ah loola dagaalamo aysan arintaasi khuseynin mid Soomaaliya oo kaliya balse laakiin ay u taalo dalalka geeska iyo mandaqadaba taasina haatan ay talaabooyin wanaagsan oo arintaasi laga qaadayo iyo la dagaalanka argagixisada loo baahan yahay in la sii dardargeliyo sidii hore si ka wanaagsan ay guud ahaanba qaaraddu ay uga hawlgasho haddii aynu Musa Faki khudbadiisa intaasi kaga nimaadno Macky Sall gudoomiyaha midowga Afrika ee madaxweynaadkiisu dhamaaday ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Senegal waxa uu isna khudbad goobtaasi ka soo jeediyay oo inta badan ku carabaabay ama uu ku soo celceliyay nidaamka la dagaalanka argagixisada iyo waliba sidoo kale sidii meesha cilaabo looga saari lahaa afgambiyada dawladaha lagu inqilaabayo ee baalmarsan sharciga ama nidaam dastuuriya loo mareynin oo aynu ognahay in gaar ahaan galbeedka qaaradani Afrika sanadadii u dambeeyay ay ku soo noqonaysay tusaale ahaan waxaynu u soo qaadan karnaa dalka Burkina Faso oo kale oo muddo hal sano gudihiisa ay ka dhaceen isla hal sano gudaheed laba inqilaab ama in laga tuuro si aan dastuurka waafaqsanayn arintaasna ay tahay mid caqabad ku noqonaysa hore socodka qaaradda tahayna waxyaabaha ragaadinaya waxa uu sidoo kale tilmaamay Macky Sall gudoomiyaha madaxweynaadkiisu dhamaaday in muddadii uu xilka hayay oo waxyaalo badan ururka ka qabtay isagoona ugu dambeyntii u hambeliyay gudoomiyaha cusub ee qabanaya xilka midowga Afrika oo ah madaxweynaha Comoros ugu dambeyntii waxa hadaba siyaabo badan ama arrimo badan lagu jeexjeexay ama lagu gurfeeyay shirkani 36aad midowga Afrika oo la filayo inay natiijooyin wax ku ool ay ka soo baxaan marka aynu u soo noqono ajandayaashii ugu waaweynaa hor yaalay sida in suuqa Afrika ama suuqyada ganacsiga ka caagan ama xorta ah lagu sii amba qaado ama lagu kobciyo si ay qaaraddu u noqoto mid dhaqaalaheedu oo dunida inteeda kale oo la jaan qaado loona baahan yahay ama arintaasi lagu tilmaamay in haddii qaaradda ay si buuxda uga dhaqan gasho arrimaha suuqa xorta ah in ay dhaqaalaha qaaradda waxyaalo badan ay iska bedelayaan guud ahaanba inahaas iyo arrimo kale oo cimiladii isbedelka cimilada adduunku saameynta ay ku yeelanayaan qaaraddan Afrika marka dunida laga yimaado iyo waxyaalo kale oo badan ayaa lagaga hadlay shirweynahaasi 36aad ee midowga Afrika waaga xamdiyo haddaan sii xoojino dabcan shirkan oo diblomaad kala duwan in ka badan dhowr boqol diblomaad ay ka soo qayb galeen dalal kale oo xiriirada qaaradda ay ka soo qayb galeen marka laga yimaado hogaamiyaashan iyo khibradaha waaweyn ee qaaradda Afrika marka laga yimaado si guud shir wuxuu ahaa aqoonyahan badan isugu yimaadeen dabcan markaad ka timaado mas'uuliyiinta waxyaaba laga falceliya haddaan taabano dadka inta badan ka falceliya ama aqoonyahanka ka hadlay ama mas'uuliin qaaradana ka tirsan waxyaaba ay taabteen intaan falcelintaan aniga waxa kamid ah qaaradda Afrika laga soo bilaabo 1963 ajandii loo asaasay ururkan oo ahaa takoorka ay hadaanku ay kula kacayeen dadka madow iyo xuquuqaha dadka madow ay leeyihiin marka laga yimaado bal maxaa iska bedelay baa leeyahay 60 sano inkastoo dadaalla qaaraddu hadda xilligan lagu jirin oo xilliga gumaysidiidka iyo caqabado badan oo midabka uu quseeyay ay arintu hay'ad inay xoroobaan sunooyinka marka laga yimaado ilaa sunooyinkii dhexe waxa aad loo falanqeynay qaaradda isbedelka wali aan ku yimin tusaale waxa la taabtay in qaaraddu 15%
celcelis dhaqaalaha dunida ay saameyn ku leedahay 15%, taasoo markaa aad u hooseysa si guud dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaaradda. waxyaabaha laga hadlay bay ka mid ahayd. sidoo kale waxaa la taabtay dhanka wax soo saarka qaaradda oo hodan kuwa qaaraddu si guud khayraadka haysto marka loo eego qaaradaha kale dunida, haddana in midho kala duwan ama raashin kala duwan inta badan dunida kale uga yimaado, sida dalalkan hadda dagaaladu ay ka socdaan qaarkood oo dagaal ay ku jiraan in raashinkooda uga yimaado dabcan ku qotoma arrimaha iyo caqabadaha qaaradda ay wajahayso. marka waxyaabaha inta badan qodobo noocaasna waa la taabtay maxaa qaaradda ragaadinaya iyadoo qaaraddu ay wax soo saar kala duwan leedahay, inkastoo dadaal uu jiro sanooyinka waliba u dambeeyay 10 sano u dambeeyay, haddana still now in qaaraddu xagga ganacsiga ay dunida saameyn ku lahayd. dhankii teknolojiyadda waa sidoo kale la taabtay oo ilaa imika qaaraddu ay lahayd teknolojiyaddan hadda dunida loogu tartamayo dalalkan aan ogsoonahay inay ku horumareen wax kasta ay u mareen dhanka maartaqaanaa aaladahan casriga dhanka teknolojiyadda marka qaaraddu inay zero ka tahay oo waxyaabaha la taabtay waxaa ka mid ahaa teknolojiyadan ugu fudud moobilada inay waxyaabahan galalkooda xataa dalalka qaar inay weli samayn kara still now. marka taalifkii waa la taabtay caqabadaha inta badan qaaradda ku gadaabay maxay yihiin. marka aqoonyahanno kala duwan iyo siyaabo kala duwan baa looga dooday in qulqulatooyinkan wadamada reer galbeedku ay ku fureen ay qayb ka ahayd. markaa si guud iyadoo taas ay dheertay haddana waxyaabaha looga gudbi karana waa la isla taabtay oo qaaraddu inay arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo furfurnaanta ganacsiga marka la yimaado inay hal hadaf yeelato oo bal sidii qaaraddu ay caqabado badan oo kaga xiran dalalka dhanka dhaqaalaha in ay uga gudbi lahayd waxyaabaha la taabtay ka mid ahayd. marka inta laga yimaado saa taabatay dee inta badan afgambiyada dalalkan galbeedka ku badan waan ogsoonahay in ay saameyn badan ku hayaan geedi socodka pan-africanismka, taa laftigeeda siyaabo kala duwan baa looga hadlay, walow aqoonyahanka qaar qaba inay dalalkan shisheeye faragelin kala duwan ay jirto iyo waxyaaba aad loo dhalay xamdi waxa ka mid ahaa xiriirka qaaraddu ay leedahay siyaasiyiintooda inuu ahaa mid aad u hooseeyey, balse sanooyinkan la filayo in isbeddel laga keeno. haddaba dalka Itoobiya markaa u nimaadno Malas Alamo oo afayeen wasaaradda arrimaha dibadda u hadlay iyo sidoo kale wasiir la taliyaha dhanka foreign police ama xiriirka arrimaha siyaasadda iyo arrimahaas xafiiska wasaaraha wasiir dowlaha xafiiska wasaaraha mas'uuliyiin noocaas waxay ka warbixiyeen ama warbaahinta la wadaagay falcelin kala duwan oo ku saabsan Itoobiya waxyaabaha ay la wadaagtay si loo bogaadiyay xaaladii adkeyd hadda muddooyinkii u dambeeyay soo martay iyo qaaradan mas'uuliin iyo qaaradu xamdi oo ka aaminsanayd waxyaabo badan dagaalkii waqooyi arrimo la xiriira oo soo neeyay warbaahinta caalamka in waxyaabo badan siyaabo kala duwan oo buunbuuninaysa iyo xaqiiqooyinka jira inkastoo qaarada dad kamid ah ogaayeen haddana shirarka waxyaabo badan oo bogaadiyeen dunidu ama ka soo qaybgalayaasha banaka Africanism yaa jiray caqabadii Itoobiya ay u soo martay xaaladda iyo sida haddana shirarkii South Africa iyo Kenya ka dhacay si degdeg ah xaaladii waqooyi cabsida laga qabay say ku dhamaatay waxyaabo mataqaanaa Itoobiya la wadaagtay ahayd dhanka siyaasadda iyo doorka ay qaaradda ugu jirto marka in qaaraddu ay marxalado badan oo saas Itoobiya ka gudubtay haddana ay still ku jirto in ay doorkeeda ay xaqiijiso oo xoojiso hadafka ay qaaraddu leedahay markasta in Itoobiya u taagan tahay. qodobo noocan waa la taabtay marka si guud waxaad moodaa in hadda Itoobiya ay door ay ka qaadanayso sidii ay ugu dhex muuqan lahayd Pan-Africanismka iyo caqabadaha inta badan haysta. laakiin si guud dadka inta badan ka falceliyo waxay leeyihiin xillimay qaaraddu arrimahan mawjadahan kulba ee soo taraya ay ka gudbi karaan iyo saameynta dunida hadba dhinaca walow imika ay ku soo hagaagtay xilli dunidii kalena ay qasan tahay oo dee awoodahoogiiba hadda aan ogsoonahay in dalalka Ruush iyo xasaradaas ay saameynayaan taasina ay siyaasiyiin badan oo wadamo badan oo faragelin adag ku hayay ay ka badbaadi karaan ama Pan-African ama mas'uuliyiinta qaaraddu arrimaha laga mashquuli karo iyaguna ay hadafkooda xaqiijisan karaan. waa hagaag cilaabo inta aynaan imanin saameynta dunida ay ku yeelatay xasaradahaasi ka alowsan quwadaha dunida haddii aynu arintan Pan-Africanismka iyo sidoo kale arrimaha lagaga hadlay shirweynaha 36 ee ururka midowga Afrika aynu dib u milicsi ku sameeyno waxa xusid mudan in sanadkii kan ka horeeyay amaba shirkii 35aad oo halkudhig uu ahaa Afrika ka caagan amaba laga maqlaynin dhawaqa xabadda
sidoo kale haatanna uu yahay hadafka amaba qorshaha ugu weyni sidii qaaradda looga hirgelin lahaa amaba ay dunida inteeda kale ugula tallaabsan lahayd qorshaha ah ganacsiga suuqa ganacsiga ee xorta ah. dabcan waxaad moodaa in dhinacii dhaqaalaha ay iskugu soo biyo shubanayso iyadoo la barbar wadayo amaba ay xusid mudan tahay in jiho iyo taba amaba xeelado cusub oo loola dagaalamayo argagixisada iyo saameynteeda nabadgelyo darre iyo sidoo kale afgambiyada iyo arrimaha caqabada ku ah qaaradda. balse waxaad moodaa in uu wejigani yahay weji ka gedisan kii hore ee dabcan qaaraddu ay xoog ku saaraysay dhinaca arrimaha nabadgelyada, balse sidoo kale iyadoon taa laga tegaynin loo baahan yahay amaba meesha lasoo dhigay in dhinaca dhaqaalaha wax ka bedel lagu sameeyo oo sida aynu ka dhadhansan karno shirweynahani 36aad ee shir madaxeedka midowga Afrika uu yahay amaba uu ku qotomay amaba ajandiisa ugu weyn uu ahaa suuqa xorta amaba suuqa ganacsiga ee xorta sidii qaaradda looga hirgelin lahaa si buuxda. si guud mantiqad ahaan qaarad ahaan ay og yihiin wadamadan dunida saameynta ku leh markasta hadafyada qaaraddu ay leedahay inay hoos dhigaan ama ajadayaasha qaaraddu kulamo badan ay kaga hadasho sida imika isbedelka cimilada kale caqabado badan oo qaaradda ka soo wajaha jira duufaano dabaylo iyo saameyn badan oo shirkanba lagu soo qaaday isbedelka cimilada dhanka abaaraha kale daadad sameeyay wadamadan mataqaan Nigeria iyo si guud dalalkii isbedelka cimilada caqabadaha ka yimid ay saameeyeen lagu soo lagu taabtay iyo markasta kulamada looga hadlo waaweyn looga hadlo isbedelka cimilada iyo qodobada inta badan issue-ga qaaradda si guud looga hadlaba kasoku isbedelka cimilada iyo qodobada kaleba in markasta wadamadan saameynta dunida kule in ay hoos dhigaan oo hoos loo dhigo oo aan la tixgelin hadalkooda. taasina waa mid hadda ay yaqiinsan yihiin mas'uuliyiinta hogaaminta qaaradda Afrika qodobada issue-ga hoosaanaya taasina qayb ka tahay. ugu dambeyntii aad baad mahadsantahay Ceelaabo, bal haddii aynu dhankaasi iyo ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeyana daawadayaasha u soo qabanayno ee toddobaadkan qaybta ka noqonaya barnaamijkeena wadciga iyo geeska, bal waxaan jeclahay inaad wararkii u dambeeyay ama wax nooga bidhaamiso xasaradaha dunida ka alowsan gaar ahaan wadamada quwadda dunida gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya ee muddaba soo jiitamay Ruushka iyo Ukraine. waxaynu ognahay in ay xiisadaasi colaadeed marba marka ka dambeysa in ay sii diirayso amaba dabka uu ku sii hulaaqmayo. waa runta xamdiyow dunidii labadan dal saameynta ay u leeyihiin dunida waa mid iyadana laga falceliyay si guud haddana rajada laga qabana waa mid laga falceliyo in rajo isu soo dhawaasha amaba la dhaxadina inay muuqan iyadoo dalalkii ugu saameynta badan dunida ay ku kala aragti duwan yihiin sida hadda Mareykanka oo kale iyo ururadan waaweyn ee European NATO inay markasta ay iyagoo dhinac ka yihiin Ruushka. waxaad moodaa waxyaabo inta badan hadda laga hadlay muddooyinkan u dambeeyay hadda shir madaxeedkii ama shirkii sanadlaha Vladimir Putin uu soo jeediyay baa jiray labadan cisho u dambeeyay kaasoo aad loo sugayay bal wuxuu kaga hadlayo waa shir inta badan sanadlaha oo si gooni ah loogu qabto mataqaanaa Ruushka sanadoo soo nahay dunidu dalalku qaarbo waxay leeyahay jidii ama habdhaqan kala duwan bay leeyihiin khudbadooda sanadlaha Ruushku in kastoo loo soo nahay dalal ka duwan xeerasha dunida markaad eegto khudbad sanadlaha waxa jirta si gooni ah loo sugo iyadoo markasta oo madaxweynuhu hadli karo haddana tan waxay mid ka duwan aad loo sugay waxyaabo ka hadlayo bal dagaalka Ruushka maadaama uu dalkuina dagaal ku jiro arrimo badan oo shacabka ay sugayeen si guud markaa wuxuu taabtay xasaradaha dunida ka jira hadafka laga leeyahay iyo markasta meelaha isugu biyo shubanayso in dalka Ruushku dagaalada hadda Ukraine iyo Ruush in caqabadaha ku bilaabmo qayb ka ah in dalal badan in dad afka Ruushka ku hadlo Ukraine ka qaaraddan amaba Ukraine ku jira kharaadda Ukraine ku jira caqabado badan lagu sameeyay dhibaatooyin badan lagu sameeyay markastana Ruushku ay ka go'an tahay nabadda laakiin dalalkan marka carab baabay salaan hadda in qoodahan waaweyn reer galbeedku in hadafkoodu kaliya ay rabaan in la maqlo wiil waxyaabo badanooda waxa kale wuxuu kala taabtay in heshiisyo waxa jira 2010kii la galay oo si ku meel gaaro arrimaha lugneerka kamid ah in wuxuu ay iclaamiyay Ruushku inay ka baxeen taasina ay cabsideeda ay leedahay marka waxaad moodaa xamdiyo in dunidii xasaradan hadda ay sii galayso labadan dal waliba qosaysa in lagu ka aragtugayo mataqaanaa saameyn adag ay leedahay iyadoo ogsoonahay in xulfaysi kala duwan uu jiro marka laga yimaado dalalka fiitooga ee Ruushka iyo China oo awood ku leh ka sokoona xiriir dhaqaale
iyo le oo muddooyinkan u dambeeyeyna dadaal ugu jiray iskaashi military iyo soo bandhig noocaas inay ku jiraan iyagoo qaaradaha kala duwan ee xiriir ay kaashanaya Mareykanka iyo xulufaysa kalena ay iyaguna dadaal ugu jiraan sida ay dowladus military faranta Mareykanku Kuuriyada Koonfureed waa kii dowladus kala duwan la sameeyay taas waxay keentay in Kuuriyada Waqooyi iyaduna ay mar kasta ay xadka ka sii baxdo ay mar kasta isku daydo inay xayndaab ka day nabadaba ay yani ka baxdo oo dalde maanta la hadli kara maaha waa ajendayaasha dunida ka jira dhageysanaya maaha si guud marka xamdi waxaad moodaa in hay'adihii qaramada midoobay waxa laga falceliyo waxa kamid ah in awoodooda yaraatay hay'adihii la wada lahaa ee qaramada midoobay ee arrimaha nabadda iyo arrimaha dhaqaalaha iyo ajendayaasha kale awoodooda sii wiqimaso oo dalalkana marka ay ku dhex milmeen oo yani lama hadli karaan tusaale ajendayaal waaweyn oo hadaf waa nabadda hadii la rabo in la taabto يعني فكرة روش قبانا ما ذكر قويان قوام بكمية طبعا نظام دحدحادين ولا اسكو سو دوينيو arintana nabad loogu soo dabaqay ma jirto taas waxay keentay marka awoodoodii inay yaraadeen ama saameynta ay ku lahaayeen dunida kadib arrimahan waxay soo baxayeen markii la arkay dunidii quwadaha waaweyn markay madax isgaleen yaa la arkay qaramada midoobay iyo hawlaheed in ay yani awoodoodii ay hoos u dhacday hadda ka hor xagga ay saameyn ku lahaayeen oo ma jirin wadamadan hadda waaweyn san madax isku ma jirin dalalkan kale qaaradda iyo caqabado kale meelahaas la sameyn jiray cabsida marka laga qabo hadda soo gunaanado qodobkan yaa taa ah in dunidu dhaqaale la'aanta ka jirta isbedelka cimilada sicir barar oo sii kacaya iyo labadan dalo xasiladoodu sii fogaanayaan marka aad eegto Mareykankii oo xaggan saameyn ku leeyahay Ruushka xaggan saameyn ku leeyahay sidoo kalena la iskala garabsanayo aad baad ma santahay Ceelaabo وهاجاك داوديال جودهان بوانجينتا تضباط كان قضبتي كلا دوجناي إنه كسر قاضناي إسلام رهانتان إنه كفلان قينني برامج كنا وضعي جيسكا أنتوا برامج كهودا كتشري وحسود تشري دين كده دهين إيه أنا جو حمد محمود إيه صاحبك محمد عمر علابة وأنا جاي يا خيار تصدق هير كسران وقلا قيب قاضي تمين برامج كنا اسكت دوبن إذن الله نبتقليو